الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الحفل الكريم. marka hore waan idin salaamayaa salaanta islaamka aan idinku salaamayaa taageerayaasha iyo madaxda xisbiga wadaniga halkan isugu timi anigu hadalka ku raagmaayo in yar baan idin sheegayaa 30 sanadood baan anigu imaaraadka joogay carabta xukuntaan aqaanaa waxaan la yaabay dalka imaaraadka waxa haysta nin la yiraahdo Maxamed bin Zayed Al Nahyan waa madaxweyne waxa ra'iisul wasaare waa Maxamed bin Rashid Al Maktoum madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo markuu tagayo wafdi ku baxo ee uu imaaraadka tago wuxuu la kulmaa Maxamed bin Zayed Al Nahyan oo ah madaxweynaha Crown Prince-ka ninkii dalka haystay uu xanuunsanaya Khalifa bin Zayed Al Nahyan baa loo oran jiray xasan cali khayr markuu imaaraadka tagana wuxuu la kulmaa dhigiisa oo ah ra'iisul wasaaraha imaaraadka oo la yiraahdo Maxamed bin Rashid Al Maktoum oo ah ninka Dubai haysta kuweenu markay imaaraadka tagaan waxay la kulmaan agaasibayaal iyo wasiir madaxtooye iyo waxaan idhaahdaa waarniyow maxaa qaldan dekedeennii iyo saldhigyadeennii iyo waxaynii kuwa qoladaa hoose laga faasaxay waxaasi iska kaalay haddaynu garanayno cidda waxaynii qaadatay waabaynu ka daba tegilayn mid kalena waan idiin sheegayaa haddii laydinku idhaa carabtu beentay sheegtaa carabtu waa ahlul karam wallaahi inaanay beenta sheegin iyo bilaahi tullaahi waxaydun maqli doontaan iyagoo xabad u sheegay lacagteennii cidda qaadatay oo yidhaahda hebelintaasuu qaatay hebelayntaasuu qaatay